kulan wanaagsan ku soo dhawaada tabinteena Tafaftir Media qodobada aan ku soo qaadanayno waxa kamid ah macluumaad ku saabsan afgambiga military ee dalka galbeedka Afrika ku yaala ee Benin xaalad bani'aadanimo oo qallafsan oo laga soo warinayo dalka Suudaan maxaa ka jira in kooxda RSF ay xasuuq hor le geysteen iyo sidoo kale falanqayn ku saabsan nuxurka wadahadalka dhex maray madaxweyne Erdogan iyo dhigiisa Venezuela Nicolas Maduro وأحد أي تاريخ دو تاهي تضبط بيش اللبي طبانات دي ديزمبر 2020 مركلة سو دوادا مقعيقو وابو بكر محمد وحان انتبنتين نكو باللعبانينا wararka ka imanaya dalka Benin ayaa sheegaya in dawladii rayidka ahayd la afgambiyay ciidamo hubaysan oo ka tirsan xoogaga dawladda ayaa si lama filaan ah uga soo muuqday telefishinka qaranka iyaga oo ku dhawaaqay kala diridda dawladda taas oo muujinaysa afgambi military in laga fuliyo dalkaasi Benin ciidamada ayaa ku dhawaaqay in madaxweynihii dalka Patrice Talon la eriyay sidoo kalena dhammaan hay'adaha dawladda la kala diray wararku waxay sheegayaan in howlgalka afgambiga ah uu ka bilowday weerar hubaysan oo lagu qaaday guriga madaxweynaha ee ku yaala caasimadda kadibna ay ciidamadu qabsadeen xarunta idaacadda iyo telefishinka qaranka halkaas oo ay kaga dhawaaqeen inay xukunka la wareegeen waxaa talada si ku meel gaar ah loogu dhiibay gaashaanle sare Pascal Tigri oo ku dhawaaqay inuu soo celinayo kala dambeynta iyo dib u qaabaynta qaranka Benin xilligan la joogo xaaladda guud ee dalka ayaa lagu waramayaa inay tahay mid qallafsan iyadoo aysan jirin warar rasmi ah oo cad oo laga helay xaaladda madaxweyne Patrice Talon oo ay suuragal tahay inuu xiran yahay ama uu baxsaday dawladaha dariska ah iyo beesha caalamka ayaa si taxadar leh ula socda dhaqdhaqaaqan iyaga oo muujinaya walaac ku saabsan mustaqbalka amniga iyo siyaasadda ee Benin talaabadan ayaana ka mid noqonaysa afgambiyo dhowr ah oo dhawaan ka dhacay dalalka dhaca galbeedka iyo bartamaha qaaradda Afrika haddii aan ku sii soconno isla Afrika dalka Suudaan barnaamijka cunnada adduunka ee WFP ayaa ka digay in uu wajahayo dhibaato bani'aadanimo oo ba'an iyada oo malaayiin qof ay macluul il daran yihiin haddii aysan helin cuntana ay xaaladoodu khatar ku jirto ku-xigeenka agaasimaha fulinta ee WFP ayaa sheegay in ururkiisa uu caawinayo 5 milyan oo qof guud ahaan dalka kuwaas oo ay ku jiraan 2 milyan oo ka mid ah dad ku sugan goobaha ay adag tahay in la gaaro waxa uu sheegay intaasi aysan ku filnayn baahida ka jirta wadanka WFP ayaa isku dayday dhammaan hababka suurtagalka ah si gargaar loo gaarsiiyo dadka baahan oo ay ku jiraan gudbinta cuntooyinka hawada laga daadinayo lacagaha mobilada lagu diro iyo dhiirigelinta kooxaha gargaarka gaarsiin kara meelaha khatarta ah si kastaba ha ahaatee tani ma suurtagelin in deegaanada ay dagaaladu ka jiraan la gaaro sida magaalada Al-Fashir oo muddo 18 bilood ah ku jiray xayiraad ka hor inta aysan gacanta ku sii dhigin xoogaga RSF bishii Oktoobar mas'uuliyiintu waxay sheegayaan in caalamka uu firo gaar ah u yeesho gobolka Kordofan halkaas oo dagaaladu sii xoogaysanayaan digniintan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo madaxa xuquuqda aadanaha qaramada midoobay Khamiistii uu sheegay in gobolka Kordofan uu wajahayo dilal ballaaran oo la mid ah kuwa ka dhacay Al-Fashir halkaas oo ay RSF qabsadeen bishii hore deetana xasuuq ay ka geysteen dunida waa inay hadda fiiro gaar ah u yeelato Suudaan waxaana loo baahan yahay in dadaalada diblomaasiyadeed la xoojiyo si looga hortago musiibada aynu ku aragnay Al-Fashir ayuu yiri xaaladaha macluusha ayaa horey loogu xaqiijiyay gobolada Darfur iyo Kordofan sabtidiina mas'uuliyiin ka tirsan gobolka Kordofanta Koonfureed ayaa sheegay in ugu yaraan 116 qof lagu dilay weerar ay RSF Khamiistii ku qaadeen iskuul carruurta yaryar ay dhigtaan iyo goobo kale halkaas oo dadka ku dhintay ay ku jireen 46 carruura ugu dambeyntii madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan oo telefoon kula hadlay dhigiisa Venezuela Nicolas Maduro ayaa booriyay inuu sii wado wada hadallada furan ee kala dhaxeeya Mareykanka iyada oo walaac laga qabo tallaabo military oo ay Washington ka qaado wadanka Venezuela Washington ayaa kordhinaysa cadaadiska ay saarayso Venezuela iyadoo Caribbean-ka ay ku ballaarinayso ciidamadeeda badda isla markaana fulisay weeraro ka dhan ah doomo lagu eedeeyay inay ku lug leeyihiin ka ganacsiga daroogada weeraradaas oo sababay dhimashada ugu yaraan 87 qof ilaa iyo hadda Washington ma bixin wax cadeyn ah oo ku saabsan eedaha weerarka ay doomaha ku qaaday waa muhiim in la furo kanaalada wada hadalka ee u dhaxeeya Mareykanka iyo Venezuela ayuu Erdogan u sheegay Maduro sida uu xusay bayaan ka soo baxay xafiiskiisa oo lagu faafiyay barta X isaga oo rajaynaya in xasarada ay si degdeg ah u yaraato Erdogan ayaa sheegay in Turkiga si dhow ula socdo dhacdooyinka gobolka isla markaana aaminsan yahay in dhibaatooyinka lagu xallin karo wada xaajood
wasaaradda arrimaha dibadda ee Venezuela ayaa dhinaceeda sheegtay in hogaamiyaha Turkiga uu muujiyay walwal weyn oo ku saabsan halista ku wajahan Venezuela gaar ahaan isballaarinta ciidamada iyo tallaabooyinka kala duwan ee lagu carqaladeynayo nabadda iyo amniga Caribbean-ka. labada hogaamiye ayaa sidoo kale ka wada hadlay joojinta duulimaadyada caalamiga ah kadib markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump bishii hore uu ku dhawaaqay in hawada Venezuela loo arko inay tahay mid xiran. Trump ayaa kulankii saraakiisha ugu sarreeyay ee amniga qaranka u qabtay waxa uu faray inay faaqidaan qadiyadda Venezuela kadib bilo kala qaybsanaan ah oo ka dhex jirtay Caracas iyo Washington. bishii hore Washington ayaa Caribbean-ka u dirtay markab dagaal oo ah kan ugu weyn adduunka iyadoo ay wehelinayaan kolonyo maraakiib dagaala. Turkiga iyo Venezuela ayaa leh xiriir xoogan iyadoo Erdogan uu dalkaas booqday December 2018 si uu taageero ugu muujiyo Maduro kadib markii Washington iyo dalal Yurub ah ay diideen dib u doorashadiisa iyaga oo ku eedeeyay khiyaano. saraakiil Mareykan ah ayaa kol sii horeysay waxa ay warbaahinta u sheegeen in haddii Maduro laga eriyo talada dalkaas ay u badan tahay inuu magangalyo ka raadsan karo wadanka Turkiga. kumanaan qof ayaa si mutadawacnimo ah Venezuela waxa isaga qoreen ciidamada kadib markii uu dalka ku noqday Nicolas Maduro. saaxiibayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa tabinteennan. waa Abubakar Maxamed oo idin leh hamoogaanina inaad nagu xirnaataan tan iyo intaanu dib u kulmayno nabad iyo warsan.